السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبت waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin xasaasiyadeeda iska leh laakiin si inaan faahfaahiyo dad badan oo jahwareersan baan arkay ama Soomaali ha noqoto ama dad kale oo qoomiyada kale oo muslimaba ha noqdaan dad baa waxa isku qasayaan wax aynan cilmi badan u sii lahayn ku dhawaaqida madaxweyne Trump anigu afkaygu magaca si fiican uma qabto laakiin Trump baan dhahayaa madaxweyne Trump ku dhawaaqida uu ku dhawaaqay in ay Jerusalem tahay magaalo madaxda Israel micnaha ku jiro ayaan rabaa inaan faahfaahiyo inaan idin xaqiijiyaan rabaa wata Jerusalem meesha leedahay waa daanta Israa'iiliyiintu degto baa Jerusalem leedahay daanta kale magaceedu wax iska bedelay ma jirtee waa Qudus weey meeshan saddex arrimood baan u kala saareynaa Beytul Qudus iyo Qudus Beytul Qudus iyo Qudus Qudus waa magaaladii Beytul Qudusna waa masjidkii barakaysnaa masjid marka laba daan bay kala leedahay saan idin sheegayba labada daan oo ay kala degan yihiin daanta Israa'iiliinta ayaa marka masjid ka barakaysan ku yaala doodi kama taagna wax la ogyahay weey sidaa darteed magaalo madaxda uu ku dhawaaqay waa un sidii ay ahayd wax iska bedelay ma jirtee daantii Israa'iiliintu baa magaalo madax noqotay daanta kale maamul baa ka jiro oo de wax sidaas oo inta la isaga hadlo sidaas oo ku hirgalaya ma jiro oo hadal qof wax isku bedeli kara male maxaa yeelay maamulkii baa ka jira Falastiiniintii baa degan oo maamulkoodii oo dhan baa degan marka sidaas darteed waa inaanu si fiican u xaqiijino oo aan dhahno meeshu waana kala saara way meeshu waa xad way horta meesha la soco marka mustaqbalka soo socda magaalo madaxda Falastiiniintana waxay noqonaysaa Qudus magaalada Qudus bay noqonaysaa daanta ay degan yihiin baa magaalo madax u noqonaysa qolada tan waxa la rabay oo ka hoos fakatay Trump in uu hal mar ku wada dhawaaqo oo magaalo madaxda Falastiiniintuna waa Qudus daanta galbeed ee Qudus magaalo madaxda Israa'iiliintuna waa daanta ay degan yihiin hadaa laga wayo bariga Qudus eegada oo xagooda Jerusalem looga yaqaan sidaas hadduu ku dhawaaqi lahaa fantastic bay noqon lahayd laakiin uu degdegay hadduu ku degdegayna si qaldan buu u degdegay waxa la rabay inuu cadaalada sugaal rabo saa ugu dhaco hadda sidaas waana afkaarahan anigu aaminsanahay way in meeshaas ay xatahay labada qolaba magaalo madax ay u noqoto qolo kasta dhanka ay degan yihiin magaalo madaxdoodii loogu dhawaaqo sidaas baa xalku ku fiicnaan lahaa waana afkaartaan anigu qabo meeshana ummaddu waa ummad wada degan oo weligood wada deganaa cadaaladda markii la sugayo sidaa bay ahaanaysaa ama macbudku dhanka Israa'iiliintu ku yaala Israa'iiliintu waxba kama bedelayaan waana sheegeen Daraamna uu sheegay macbadku sidiisu ahaanaya dadkuna meeshooda ku caabudayaan Israa'iiliinta iyo Christianity-ga iyo hadana laga waayay muslimkuba sidii ay u caabudayeen bay u caabudayaan hadana laga waayay ay u barakeysanayeen in Ilaahay baa la caabudaa laakiin meel macbadaho wax lagu caabuday aheedo Ilaahay lagu caabuday marka sidaa darteed taasi wax iska bedelay malaha dadka yaan jahawareer lagu ridin talaabada Trump qaaday way ka hoos martay ma ogiye macnaha sida mustaqbalka ay noqon doonto anu mar hore aan nuqul ka qoray dad igu raacsan iyo dad igu diidanba way jireen meeshaasi labada daanba in laba daan oo magaalo madaxa ay noqoto meesha maadaama ay xad tahay arintuna halka qeylalaan ay ku dhamaato laba dawladood oo isla degan oo Falastiin iyo Israa'iil magaalo madaxdooduna Qudus ay noqoto bariga Qudus iyo hadaa laga galbeedka Qudus kala ah kaliya meesha macbadka barakaysanna dhanka Israa'iiliinta weeye sida aan waxba laga bedelino laakiin macbadka sharcigiisa aan waxba laga bedelin sumeynaan garan Ilaahay bay tiisa tahay arintani waa intaas jahawareer ha isku ridina wax jahawareer ha isku ridina xaqiiqda dhabta ah in la abaaro ayaa wanaagsan diintan arinta meesha taala diin iyo niman yahow iyo masjidki iyo arintan iyo ma aha wax ka weyn baa yaala meesha masjidkana waa meel oo waa arin kale waxaad kala saaraysaan markaad arintan xalinaysaan diinta
iyo marxaladaha kale ee waddanka dhulka la isku haysto inaad kala saartaan wey oo aad kala saari kartaan wey macnaha haddaana laga waayinay xajka markaad aadayso dowlad baa xukunta islaamka oo dhan baana haddaana laga waayinay la faray inay xajka aadaan sanadkiiba hal mar soo midnaan garan waa un sidaasoo kale meeshana masjidka waa masjid barakaysan qolo unbuu dhankeeda ayuu jiraa hadduu jirana macbadku sidiisii unbuu macbad u ahaanayaa noocii loo caabudayay oo wax loogu caabudayay ilan masjidka lama caabudaye qaabkii wax loogu caabudayay unbaa loogu caabudaya loogu barakaysanayay baa lagu barakaysanayaa sheekadana wax big deal oo jira ma jiraan ha la isdejiyo xagga dagaalka markii la dhaha islaamku nas uma hayo in dagaal wax lagu xalliyo gebiba wax dagaala oo meeshaas ayada lagu wajahi karo male dad iska waxay doonaan isaga hadlayaa jira si aad maxaad yaad la dagaalamaysaa meesha waa la wada degan yahay qoloba dhankeedii bay magaalo madax yay rabtaa inay ka samaysato tase waxa kaliya hadda aanu dhihi karna waxa weeye falastiiniintana dhankooda ha lagu dhawaaqo ciddii awoodi loo ku dhawaaqi karto anu kulley inta karaankayga afkaartayda waan qabaa in dhankooda ayagana magaalo madax looga dhigo israa'iilna wax dooda ay ka qabta male tan waa arrin qasab ah inay sidaa haddii laba dowladood oo isla degan in laga dhiga la rabo simple and clear marka qofkii ku dhawaaqi lahaa ayay u taallaa marka qof sida drama oo kalaa loo baahan yahay oo islaamka uu leeyahay ma jiraan oo maleenaya marka sidaa darteed anigu ku dhawaaqay magaalo madaxda falastiiniinta waa daanta galbeed ee haddaana laga waayinay qudus daanta galbeed ee qudus waa magaalo madaxda falastiiniinta daramba uu ku dhawaaqay anna waan ku dhawaaqay afkaartayda wey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu